wafdi ballaaran oo ka socda dekedaha waddanka Jabuuti iyo goobaha ka caagan cashuuraha ayaa soo gaadhay magaalada Saylac. wafdigani ayaa waxaa hogaaminayay safiirka Somaliland u fadhiya waddanka Jabuuti Ambassador Cabdifataax Siciid Axmed. wafdigu markay soo gaadheen magaalada Saylac ayaa waxaa sidoo kale halkaasi ku soo dhaweeyay maamulka gobolka Selel. socdaalka wafdigani ayaa wuxuu daaranaa sidii ballaarin iyo hagaajin loogu samayn lahaa dekeda qadiimiga ah ee magaalada Saylac iyadoo haatan lagu bedeli doono dekedii hore deked kalluumaysi iyo ganacsiyada yaryar, waxaana dekeda ballaarinteeda 1 kiiloomitir iyo badda loo gelin doonaa dhinaca jasiiradda Sacadadiin. sidoo kale waxaa wafdigani weerinayay injineero iyo khubaro ku takhasusay dhisidda dekedaha oo ka socday waddanka Holland. GPS Master Planiska ayaa goobtaasi lagu qiyaasay sida dekeda loo dhisayo iyadoo lagu soo bandhigay maabka cusub ee dekeda Saylac loo dhisi doono. wafdigu intii uu ku sugnaa gobolka Selel ayaa wuxuu sidoo kale soo booqday goobaha milixda laga qodo ceelasha badan ee ku yaala magaalada Tuqoshi ee milixda laga qodo. labada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geele ay ka wada hadleen sidii iskaashi loo sameyn lahaa labada dhinac labada dal hadday noqoto xagga maxaahayda milixda dhoofinteeda ama suuq geyn loogu sameyn lahaa, hadday noqoto kalluumaysiga oo runtii maanta halkan aan joogno dekedii hore Saylac ee qadiimiga ahayd oo runtii la doonayay in development lagu sameeyo wax la yiraahdo social development xagga maxaahayda Saylac. wadogtii Saylac marba biyaha soo gala magaalada taana runtii waxba nagala qabanaya walaalahin Jabuuti. halkan waxaan u nimidnay inaan hawl ka qabanno Tuqoshi iyo Saylac. Tuqoshi oo soo marnay oo milixdan garanaysaay badan barama aad qiimaha badan leh sida moogtay dabayshan soo kacaysa ee moogtay ku habsanaysa si looga dhabi lahaa weeyaan yaan nimidnay. Zaylacna waxaan nimidnay inaan ka dhisno boor kalluumaysiga ah iyo biyahan badda ee magaranaysa ku hareeraysan sidii looga dhabi lahaa yaan nimidnay. waxaan la socday waqti ballaaran oo expert ah oo 4 ay ka kooban yihiin oo ka yimid waddanka Holland oo mutakhassis ku ah xagga boorarka oo halkan la jooga iyagana hawsha qabanaya macluumaadka ay u baahnayeen maanta way heleen. mustaqbalka waxaan doonaynaa inaan dhisno boorka aan sheegay waan soo dhaweynaynaa dooxa milixda wafdiga iyo maaragtay hay'adaha wixii ka yimid Jabuuti iyo Somaliland. waan ku soo dhaweynaynaa dooxa milixda socdaan joogna waxa la yiraahdaa Qoriiley waa ceelasha Aasiyaanka iyagoo jira uma anagu garaadaysan wax anagu abuurkoodii aan ka sheekaynayno maaha qaar abuurkooda aan ka sheekaynayno way jiraan oo degegooyinkan oo kale waa milix. Maxamed Jaamac Waale warbaahinta qaranka Somaliland Jabuuti.